mar kale iyo barnaamijkeennii dhaqanka iyo hiddaha ee aynu ka soo xigan jirnay dhaqan yaqaan Axmed Faarax Ali Idaajaa waana qayb labaad oo ku saabsan Soomaalida iyo dhaqankeedii xididka daawadayaal xurmo iyo maamuus siyaada ah ayuu xididku isku lahaa sidaan barnaamijyadii hore ku soo xusayna waxaa jiray dhaqan u gaar ahaayo tirarka ugu waaweyn ay ahaayeen kala xishoodka kala gabashada iyo wax isdaarashada waxay xididnimadu lahayd wax dheef aan marka hore lagu talagelin asi gadaal ka yimaada taasna intaan isku daya inaan tusaaleeyo aan idhaahdo dhawaan ka hor guurka qoyska dhexdiisa ah Soomaalidu ma ay aqoon hadduu dhici jirayna dhif uu ahaayo sida carabta ilmaadeerada laxmiga ah isuma ay dhisi jirin barbaar waliba markuu guur haweysto waxaa lagula talin jiray reera ay dhul iyo abtirsiba ku kala fog yihiin inuu u gayaan doonto taas markuu yeelana waxa siday u badnayd u dhalan jiray rag wada cirkayeedha oo waaga dambe bulshada dhexdeeda ka tilmaanaan jiray dhanka kale marar badan ayaa guurka fog lagu badbaadi jiray inanka iyo inanta ku dhashaana waxay yeelan jireen qaraabo aan xagga aabbaha kaliya ka soo jeedin oo si uun ay ugu baxsan jireen ka soo qaad xilliga colaadaha laba qolo markay diriirto goobaha dagaalka ninka lagu qabto haddii aan si degdeg ah loo mindiraacin waxaa ku hagoogan jiray qaar ay xidid yihiinoo uu isagu dumar ka qabo ama iyaguba ka qaba waxay u badnayd isaga oo bad qaba inuu ku noqdo dhulkii uu ka soo duulay taasina guurka fog iyo xididnimada ku abuuranta oo qura ayay ku suuroobi jirtay gabadhiisu guur ma lahayn walaashiina looma hawoon jirin nin hortiisa seedigiis ama sodogiis lagu dilay amaba lagu macjuufeeyey waxdheefka kale ee guurka fogi lahaa waxaa ka mid ah wax isdaarashada markii ay baahiye timaado kolkii xoolaha laga dhaco ama abaar diirata ahi ay deegaankiisa ku habsato xididku waa istaageeri jiray hadba dhinaca liita ayaa dhinaca kale wax bidi jiray inay isqadiyaanna uma badnayn mararkaas oo kale xididka ayayba tolka kaga kalsoonaan jireen sidaa daraaddeed in sukeeyuhu wax isu diidaa ma ahayn waxay bulshadu la yaabto waxayse la yaabi jirtay xidid isa soo tamadeeyey inay hungo ku kala laabtaan hadday dhacdana waxay ahaan jirtay wax dhinaca ku kaca lagu ceebeeyo allaha u naxariistee cabdi maxamed aw magano cabdigalayax loo yaqiin ayaa bari wuxuu geeraar ka tiriyey geelii oo u badan waayey inkastoo uu si walba dhaqaalihiisa ugu dadaali jiray tudcyada geeraarkaas ugu horeeya ayuu ku soo qaaday laba arrimoodoo ay la ahayd inay ka mid ahaayeen sababihii uu geelu ugu tarmi waayey midda hore wuxuu ku sheegay nin seedigiisa oo gabadh isaga la walaal ahayd ay u dhaxday kaas oo geeliisa wax ka siin waayey kan labaadina waxay ahayd isaga oo ahaa xalaal quutee xaaraanta ka caaganoo aan jeclayn marnaba xoolo booli ahi inay xeradiisa galaan meerisyadaas oo ay hubaal tahay xididkii lagu xusay markii ay maqleen inaysan ku farxin wuxuu galayax ku yidhi dhugmalaysiga geela tacabkii iga dheeroo dad ninkaan dhuganayo walaashay u dhisnaydoo dhowrka wiil u lahaydna dhacan buu iga saartay anna dhoombir ma qaatoo dhol dhaqaaqay ma raaco booli dhool kuma keeno waxaa marar aan badnayn dhici jirtay nin dhowaan guursaday inuu la dego qoyska uu la xididay gabadha aabbaheedii hooyadeed in aqalkiisa laga agdhiso oo intii muddo ah uu reerka ku quud iyo qaadhaan noqdo ninkaas oo kale inanlayaal bay ku magacaabi jireen waxaana la odhan jiray reer xididkiis ayuu mindhismo ku yahay waxay ahayd arrin uu dhaqanka Soomaalidu ogolaa asii la wada qabay in laga roo yahay sidaa darteed waxaa aalaaba barbaarka reerka cusub dhistay lagula talin jiray in aanu la ood noqon qoyska uu la xididay ee gabadha dhalay taas ayay door bidi jireen markaasna waxay ka cararayeen in si hoose la isu barto la isugu fiirsado laysa sii hundo ogaado dabadeedna xididnimadii wanaagga ku bilaabatay uu madmadow soo dhex galo waxaa la hagaagsanayd inta la kala fogaado in laysu soo xiiso oo markii waa la joogaba iyada oo laysku wanaagsan yahay dhinacba uu dhinaca kale halkiisa ugu sadcaalo halkiisa wax ugu doonto halkiisa wax ugu geeyo amaba tala cuslaatay wax ka furdaaminteeda uu ugu tago waxay odhan jireen inta la kala maqan yahay dheef kaliya lalama kala maqne dhibna waa lala kala maqan yahay waxa kale ku mahmaahi jireen xidid wada degay waa waxa oo wada degay wax inaan afka ku ballaariya ay ugu adag tahay sariigtuna ay ii diidayso hidda ahaan
wadadegista xididka in laga fiican yahay si ay inoogu sii caddaato waxaynugu filan inaan xusuusanno sheeko caana oo garsoorka soomaalidii hore u xusan. waxaa la yidhi nin iyo sodohdii ayaa sheekaystay, saa hadalkiibaa ka xumaaday, dabadeedna way murmeen. garan mayno shayddaankii ka dhex shaqeeyey wixii uu ugu soo gabaday, waxaase ka dhex dhacday foolxumo aan cidina filayn. inankiibaa inta dhab u cadhooday isxakamayn waayey, markaas buu duqdii uu gabadheeda qabay dharbaaxo kaga soo qaaday. waxay noqotay xaajo ciddii maqashaaba ay la amakaagtay, qofkii loo sheegaaba af kala qaadiye qaadan waah buu ka qaado. waa la isku ogaamay xaggee wax laga qabtaa iyo xididtinimada labada reer sidee loo badbaadin karaa ayaa la ishaybiyey. odayadii degaanka ayaa geedkii shirka degdeg ugu soo ururay. arrintii markay gudagaleenna way ku cuslaatay, maxaa yeelay iyada oo kale hore uma ay soo marin, ma ahayn xaajo curada oo mid ka horraysay oo loo tixraaci karaa ay jirtay. ugub bay ahayd. dhowr maalmood haddii arrintii loo fadhiyey ayaa waxaa loo batay inanka in la saaro ganaax xoog leh oo dharbaaxada sodohdii uu ku mutaystay. iyadoo in guddoonkaas la rido kaabiga loo joogo ayaa waxaa geedkii ku soo biiray oday la wada yaqiin oo garyaqaana. isnabdaadin kadib waxaa lagu celiyey gartii geedka tiilay iyo wixii loo batay. markaas buu yidhi waxaasi garsoor maaha, taladii hagaagsanaydna ka ilduufte, inankuna wax gardarro ah oo lagu ganaaxo kuma u kicin. saa inta hadalkiisii lala ashqaraaray ayaa iskumar waxaa lagu yidhi hebelow ma waalatay mise waad soo wadataa? ma ninka sodohdii dharbaaxay baad leedahay? wax lagu yakeeyo ma u falin. wuxuu yidhi haa, welibana sodohda ayaa gardarrada iska leh, oo sababtuna ayaa la weydiiyey. markaas buu yidhi iyada maxaa joojiyey inanka ay sodohda u tahay kobta u dharbaaxada kala gaadhi karo? hadal kama dambayn, geedkiina waa lagu kala dareeray iyada oo wixii dhacay eedooda sodohdii dhabarka lagu saaray. daawadayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halka ha inoo joogo. waa inoo mar kale iyo ku kale oo ku saabsan soomaalida iyo dhaqanka xididka hadduu eebba idmo.